kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta meel kastoo aad joogtaan waxaad nagala socotaan VOS 24 TV aniguna waa Nasir Ilkurde barnaamijka arnamaanteena uga hadalno waa dagaalka dhexmaraya Ukraine iyo Ruushka kaas oo loo kala saftay wadamo badan oo dunida ah Ukraine oo ay taageerayso wadamo aad iyo aad u qowd waaweyn oo dunida maanta isku sheegaan in ay ayaga dunida maamulaan sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmal iyo wadamo badan haddaba maalin aan sida u badnayn madaxweynaha dalka Ukraine wuxuu sheegay in uu u baahan yahay taangiyo uu isaga caawiyo taangiyada Ruushka ee lagu soo daabulayo wadanka isaga dariskiisa ah si uu isaga difaaco hadii kale Ukraine oo dhan Ruushka ayaa qabsanaya uu yiraahday si degdeg ah ay shir u qabsadeen wadamo badan oo NATO ka tirsan isla markiiba iyagu waxa bilowday nin walba taangiga uu jecel yahay ugu dambeeyay ugu casrisanaa inuu ugu yabaho oo u diro wadankaasi Ukraine waxa durbaba diray qayb kamid ah ciidamada wadanka Ingiriiska taangigiisa ugu jeclaa ugu dhaartay uu aad u amaanayo dhahay taangiga meesha uu galo waa galan yahay lagu magacaabo challenge 2 qayb kamid ayuu diray maalinimadii shalay urweynaha NATO la isku dhaho waxa soo dhaxgalay shakigaas oo ah kadib markii Mareykanka uu wadamo badan juqjuqeynayo sida wadanka la yiraahdo Poland oo NATO ka tirsan iyo wadamo kale oo yaryar oo Jarmalka ay siiyeen taangiga oo Jarmalka oo sheegay waan ku dhaartaa oo dhahay isiin oo dhahay direedka taangidiina anagana ay ku dhahin anaga taangiga markaan Jarmalka kala soo wareegaynay heshiiskeena ma ahayn in uu gacan saddexaad aan ku wareejin isagana ma ogolo Jarmalka naftirkiisana wuxuu yiraahday aniga ma diraayi oo fagaaraha lagu ma ceebeenayo Mareykan isaga oo taangigiisa dirin sheekada aan dib idin celiyo markii ay ku yabooheen walba taangigii oo sheegay oo yabahay oo amaanay taangigiisa Ruushka ayaa hadlay wuxuu yiraahday anigana waxaan hayaa taangiyadooda taangiye aan ugu talagalay bilibkooda ugu casrisan inuu meel saaro marka maalnimadii shalay shakigii weynay ayaa soo galay Jarmalka wuu hadlay wuxuu dhahay aniga ma diraayo dhahay liguma ceebeenayo fagaaraha Ruushkana ima ceebeenayo ileen taangigan wadamo badan ayaan ka gaday kuwa badan way dhimayeen ka gado Mareykanka isaga koow hadiro kadib anigana waan diraayo maalnimadii jimcada ahayd shir degdeg ay ku wada balameen NATO in loo fariisto sawirada waxa ay kaga muuqan doono sidoo kale sawirkan wasiirka gaashaandhigga waa nin madow ah iyo Jarmalkii shirka arimaha wasiirka gaashaandhigga Jarmalka labadooda hadlay si jeejas u fiirinayo mas'ala marka telefishinada iyo warbaahinta gaar ahaan aniga warbaahinta aan ka soo nadaara waxa lagu micneeyay sawiradaasi in ay tahay warsoomo ogid aniga in aan ku dul joogo ciidankeygana ku dul joogaan dhowr isbuuc ka hor waatay safaaradda Mareykanka ka hor baraabaxay dadkaaga ay dhahayn Mareykan oo naga bax soomo ogid oo ninka aniga ku maamulo inaad tahay Jarmalow soomo ogid oo ciidankeyga ugu xoog badan in ay dul joogaan ciidan wadankaaga sidee aniga u soo leexinaysaa waa inaad dirtaa ciidamada wadamada aan u sheegno waa inaad amartaa oo ayagana diraan taangidaada war adiga maxaa taangiga kugu diray ay dhaheen nimankan Jarmalka adiga ma dirsid adiga ba king of wall boqorka dunida isku tilmaamay ma Mareykan wuxuu ku jawaabay uu isxayeysiiyay uu isbacrinaa dib uu isku dhigay wuxuu yiraahday aniga taangigeyga waa taangi casri ah ciidamadeeda waxaan ahayn ma afgaranaya si dhan waa kombiyuutarad waa electronic aan caadi ahayn waa in aan kaxeeyo ciidamo kamid ah kuwada ugu khibrada fiican ee taangiyada Ukraine si aan tababar ugu soo fidiyo kadib markii ay ku baasaan aan u keeno taangiyadaas hadda la iska soo diri karo mar rabo in uu Ruushka qabsado taangiga uu ogaado tiknoolajiyada aan ka sameeyay iyo waxyaabaha aan aniga aan awood leh aan ka sameeyay macnaha taangiga saas laajigeeda ayaan dib ugu dhigay ciidamaan u tababar doonay waa inaad adiga dirtaa taangigaaga hadii kale waxa isku arkay waa rabasho kugu farayaan xaaladda marka Ukraine way yaabayeen oo afka ay gacad saarteen waxay noqon doontaa kollay lama ogo lama qiyaasi karo aniga fikirkeyga Nasir ahaan hadii aan isdhaho Ukraine waxaan u maleyn doonaa in ay isdhiibi doonto oo Ruushka maamuli doono waayo dadku isku haleynayay ayaga meesha waxba ku hayn hadalkii uu jeediyay Putin ee taangi wax kasta soo dirtaan aniga mar hore taanidii toobasheystay waxooda kale aan idii hayaa way dhowr mar ay fashilmeen gantaalay geeyeen wadamo badan gantaalay xataa diyaarad darorisigeed wuu ka sii daraybo ka sii daray habeen dhacdaas ahayd maalaxaas wuxuu dhahay hawada Ukraine waa nadiif wax soo gudbi karaa habeenkii ahayd waad iska dabashaadi kartiin caasibadiino isla caasibadii habeenkii waxa ka dhacay ayagoo u dabaaldegayeen habeenuye ayagoo u dabaaldagayo ayaa duqeyn lagu bilaabay waa caasibadii hadii xeer wixii madaxweynaha ayaa hadlay wasiiradii dhan baa wada hadlay waxay dhaheen godadka hoose ee treenada maro waa inaad ku dhuumataan annaga tala faraheena uu ka baxeen
marka xaaladda Ukraine iyo qadarka iyo sida ay u dambayso waa inaad qiyaastaa kubatiga hoose loogu soo qor fadlan noo share garay meesha ay ku dambeeydo xaaladda Ukraine Mareykanka ayaa garab toos ah si dooro oo ay guuleysan doontaa oo Ruushka ay iska beel saari doontaa ama Ruushka ayay u gacma taagi doontaa oo isliibi doontaa waa Cabdinaasir Cabdullaahi Jaamac Naasir Kurde VOS24 TV fadlan waxaan idinka codsanayaa qofka soo gaaro YouTube-kan subscribe noo saaro haddayaan kor u soo baxeena leegna waa inuu saaraa kubatigana waa inuu muhiim page-keena VOS24 TV haddii aad ku cusub tahay follow garayso noona share garay kubatiga ka bixiyo maasta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.